السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركل السود وهذا أدي هذا ومهتسنتهين ما أنت وايسنين وأنا تضبط بش التضبط أي جولاي سنة كلابد كن يشان يلباتنك مقال كان محرب عنا ندكله وذاقه نين قريب بين كوقياني كنكري قويسس أي صومالي كجرتو وحنا أرهنتنا كبعدي مقالة سين بول gobolka Minnesota waan idil wadaagaya lacagaha ninkaasi uu khiyaanay dacwadaha hadda ku socdo arimahaasi oo idil ayaan rabaa inaan idil socodsiiyo arintan kale waa arin la yaab leh bal ka waran hadii aan ku iraado dhaqtar ku sugan Mareykanka ayaa waxa uu qalliin dhinaca kansarka uu ku sameeyay bukaan ku sugan wadanka Angola oo ku yaala bartamaha qaaradda Afrika arintaasi sidee ku dhacday suuragal ma tahay maxaa suura galiyay hadii ay dhacday waxyaabahaas oo idil ayaan rabaa inaan idin kula wadaago qaybaha dambe ee muuqaalkan balse marka hore soo ninkan magaciisa la yiraahdo Kai Cow waxaan u maleynayaa in indha yar inuu yahay kulay Shiinaha iyo meel uu ka soo jeeda ma garan kara laakiin waa muwaadin Mareykan hadda ninkan waa khiyaanole guri uu isagu lahaa ayaa waxa uu ka kireynayay dad kala duwan lacaga deposit ahna uu ka qaadanayay gurigiina dadkii ma uusan u ogolaanaynin in ay degaan waxaan ognahay Minnesota bishii January horaanteedii ee sanadkan waxa ka dhaqan galay sharci xuquuq dheeri ah siinayo dadka iyagu kireystayaasha ee guryaha kireysanayo oo xitaa inay urur samaysan karaan dacweyn karaan hadii guryaha ay degan yihiin ay wax ka qaldan yihiin dadka iska lehna ay diidaan in cabashadooda ay wax ka qabtaan marka ninkan waa khiyaanole waliba muddo 20 sano ah ninkan dambiye kala duwan ayuu galayay laakiin dambiyadaasi ka suko sawiradan aad arkaysaan waa sawirro kala duwan oo 20kii sano ee la soo dhaafay markasta uu xabsi galaba laga qaadayay markshotka laakiin labadan sawir hadda waa labadii sawir ee ugu dambeysay ee markii la xiray laga qaaday laba khiyaano oo kala duwan midan kirada uu guriga dadka ku khiyaanayay intuu ka kireeyo lacag deposit uu ka qaato dadkiina uusan u ogolaanaynin inay guriga soo degaan iyo sidoo kale xatooyo kale oo lagu helay ayaa labadan sawir looga kala qaaday haddaba ninkan muxuu sameynaya marka ninkan gurigan aad u jeedaan ayuu waxa uu ku yaala magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ayaa waxa uu ka kireynayay dad kala duwan dadkaasina gurigana waliba available ma uusan ahayn oo guri kira u diyaar ah ma uusan ahayn dadkiina ma uusan u ogolaanaynin in ay gurigaasi soo degaan qoysas Soomaaliya ayaa ku jira dadkaasi waxa kamid ah Ayaan Maxamed iyo walaalkeed Saciid oo lacag uu ka qaatay isla markaana uusan u ogolaanin inay gurigii soo degaan waxa sidoo kale kamid ah wiilkan la yiraahdo Marwan Cali oo isaguna sheegay in heshiiska gurigaasi uu ku degayo in uu bilowdo ahayd bishii March ee 3 ee sanadkii 2024 dhamaanba dadkan uu khiyaanayo waa sanadkii hore ee la soo dhaafay ee 2024 waxa sidoo kale ku jira labadan gabdhood oo la kala yiraahdo Kristen iyo Michelle oo waliba mid kamid ah baahiyaha gaarka qabto oo kursigaasi wheelchair-ka ay ku fadhiso waxa uu ka qaatay oo deposit ahaan uga qaatay labadaasi gabdhood ee cadaanka ah $5,300 oo deposit ah isla markaana sidoo kalena waliba waxa uu yiri guriga la idinka sii degayo lacagtaasi waa inaad bixisaan depositka si guriga aan idinku sii hayo gurigiina ma uusan u ogolaanin in ay degaan marka ninkan lacagahaasi depositka ayuu dadka ka urursan jiray gurigii uu ka kireeyana ma uusan u ogolaanaynin in ay degaan marka dad fara badan ayaa soo dacweeyay ninkan marka la arkay cabashadan faraha badan ayaa baaritaan lagu sameeyay waa la soo xiray marka ninkii waa maxkamadda hadda la yiraahdo Ramsey County degmadaasi maxkamadda ku taala ayaa ninkan dacwadahan ku soo oogtay xatooya dacwadogayaashu marka waxa ay sheegeen ninkan in uu lacago fara badan oo gaaraysa $26,000 oo ka qaatay ilaa iyo 5 dhibane oo kala duwan oo gurigaasi uu yiri waan idinka kireynaya marka laba qoys hadda waa Soomaali sidaan aragno qoyskaasi cadaanka iyo laba qoys oo kale ayaa sii jirta oo hadda aan lagu sheegin dacwadan marka ninkan sida aad aragtaan ba sawirada aan hore idin tusay muddo 20 sano ah dambiye kala duwan oo felony ah ayuu soo galay oo arintaasi xatooyada ay ku jirto musuqmaasuq uu ku jiro ma khiyaano sidoo kale jeegag la been abuuray ay ku jiraan waxyaabahaasi oo kala duwan ayaa ninkan uu soo galay qoysaskaasi Soomaalida ah
waa ayaan maxamed iyo saciid iyo weliba marwaan haddii aad daawanaysaan waan jeclaan lahaa inaan waraysi idala yeesho arrintaasi ku aadan amaba qof garanaya haddii uu jiro in barahayga bulshada ay igala soo xiriiraan balse aan arrintaasi aan wax uga weydiiyo sida ay ku dhacday iyo lacagaha laga qaatay hadda labada gabdhood oo cadaanka lacagta uu ka qaatay oo kaliya ayaa la sheegay laakiin labadaasi qoys oo Soomaalida ah lacagta uu ka qaatay lama sheegin ninkan sidoo kalena hadda waxaa dacwado kale ay uga socdaan Hennepin iyo waliba Scott County waxaana uu ninkan uu sameeyay in dacwadoogayaashu ay ku eedeeyeen in uu bishii May hadda sanadkan in lacag $35,000 oo ka qaatay in company uu u shaqeynayo oo ku yaala Edina waxaana ninkan uu sheegay inuu saxiixay contract ah in cawska la jaro cawska la jarayo amaba ha laga jaro guryaha ama meelaha kale ganacsiyada ha laga jaro markaas kadibna lacag $35,000 ayuu iska qaatay contractigi markuu saxiixay kadibna dib looma arkin sidoo kalena waxaa jirta in Sam's Club isaguna ku yaala Shakopee oo bishii June ee sanadkan inta uu tagay qaybta jewelry-ga ama waxyaabaha la isku qurxiyo lagu iibiyo in qofkii joogay markuu dhinaca kale u jeestay jijin been abuur ah uu watay oo fake ah intuu meesha geliyay uu mid kale ka qaatay marka waxaana ay joogtay 4,000 iyo 700 ama 4,800 ba iska dheh ayaa jijintaasi ay joogtay markaas kadibna waxaa laga soo qabtay meel kasiinaha oo qamaarka lagu ciyaaro isagoo wata lacag kaash oo gaaraysa $977 marka hadda khiyaanadaasi uu dadka guriga beenta uu ka kireeyay lacagtaasi qofkii u shaqeynayay $35,000 uu ka qaatay iyo waliba jijintan uu xaday oo 4,800 ku dhawaad joogta dambiyadaasi oo idil ayaa hadda ninkani uu wajahaya marka dacwadiisa waxaa la filayaa dadka uu kirada ku khiyaanay in ay bilaabato in bisha September ee hadda sanadkan inay bilaabato bisha 9aad $1 oo kamid ah lacagtii uu ka qaatay dadkaasi guriga been abuurka uu ka kireeyana ma uusan ilaa ya hadda uusan u celin damaanad ayaa hadda banaanka uu ku joogaa waxaana kiradaasi uu dadka ku khiyaanay maxkamadeedu Ramsey County ay ka bilaaban doontaa bisha 9aad waxa sidoo kale la yaab leh gurigii been abuurka uu dadka uu ka kireynayay in uu iibiyay bishii November ee sanadkii hore ee 2024 ayuu guriga ku iibiyay ilaa haddana dadkii lacagahaasi uu ka khiyaamay wax lacaga ama $1 dib ma uusan ugu celin marka arrintaasi waa arrin oo ninkaasi sameeyay oo rabay inaan idin la wadaago ugu dambeyntii sheekadan waa sheeko la yaab leh anigu xitaa markii aan arkay waan la yaabay dhakhtar ku sugan magaalada Orlando ee gobolka Florida ayaa qalliin dhinaca kansarka qanjirada ah waxa uu ku sameeyay bukaan ku nool magaalada Luanda ee caasimadda wadanka Angola oo ku taala bartamaha qaaradda Afrika arrintan sidee ku dhacday in dhakhtar Mareykanka joogo oo qalliin ku sameeyo bukaan ku sugan qaaradda Afrika ama wadan kamid ah wadamada qaaradda Afrika waxa dhakhtarkan magaciisa waxa la yiraahdaa Dr. Fibul Patel waxana uu madax ka yahay Global Robotic Institute Advent Health oo ku yaala Orlando Florida marka dhakhtarkan waxa uu sameeyay qalliinkan isagoo isticmaalaya robot mashiinkaasi waa mashiin qaali ah oo malaayiin dollar jooga kaamirooyin casri ah ayaa ku xiran internetka xawaarihiisu sareeyo ee fiber optica ayuuna isticmaalaya oo Orlando inta ka bilowdo Atlantic Ocean-ka mara Brazil taga kadibna Angola dhinacaasi internetka fiber optica uu yimaado maadaama marka qalliin noocaasi ah la sameynayo oo waliba halis ah in haddii internetka uu xawaarihiisa ay cilad ku timaado ay khatar tahay in qofkaasi uu geeriyoodo marka dhakhtarkan waxa uu qalliinkan ka sameeyay marka hadda aad Mareykanka ka baxayso oo aad Afrika aadayso waxa ay noqonaysaa haddii diyaarad toos aad raacayso ku dhawaad 14 ilaa 15 saacadood haddii transit meel kale aad ku mareysana 20 saacadood ilaa 19 saacadood amaba ka badan ayay noqon kartaa marka bukaanku waxa uu ku sugnaa ilaa 7,000 oo mile ay isku jireen dhakhtarka iyo qofka bukaanka uu qalliinka ku sameynayay kilomitir ahaan waxay noqonaysaa 10,900 oo kilomitir marka dhakhtarku robotkaasi kaamirooyinkaasi ay ku xiran yihiin laba shaashadood leh ayuu wajigiisa galiyay kadibna gacmaha ayuu ku maamulayay remote-ka sida hadda PlayStation adigoo ciyaaraya oo kale marka sidaasi ayuu qalliinka ku sameeyay waxa uu sheegay 1 saac iyo 20 daqiiqo inuu qaatay isla markaana
uu ku guuleystay. Marka waxa uu noqonayaa qaliinkii ugu horeeyay ee bukaan dhakhtarku isagoo aan qolka kula jirin raabod uu ku sameeyo isla markaana ay kala fog yihiin. hay'adda FDA-da oo dowladda Mareykanka u qaabilsan dhinaca kontaroolida cuntooyinka iyo waxyaabaha daawooyinka wadanka soo galaya ayaa ogolaatay, waxaana uu noqonayaa qaliinkii ugu horeeyay ee qof bini'aadana lagu fuliyo oo robotic uu sameeyo telesurgery wax la yiraahdo. ninka lagu fuliyay magaciisa waxa la yiraahdaa Fernando da Silva, waa 67 jir. 3 bilood ka hor ayaa kansarka qanjirada laga helay, wayna adkeed in qaliin noocan oo kale uu ka helo wadankiisa Angola. waxauna ogolaaday inuu noqdo qofkii ugu horeeyay ee bini'aadama ee qaliinkan uu sameynayo robotka lagu tijaabiyo. hadda tijaabo ayay weliba ku jirtay, laakiin tijaabo lagu guuleystay ayay noqotay. marka waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay markii qaliinka uu dhamaaday kadib. waa kan Fernando da Silva oo la weydiiyey sidee dareemaysaa? caafimaad ayaan dareemayaa ayuu yiri. marka FDA-du hadda waxa uu dhakhtarku sheegay in maadaama qaliinkan aan ku guuleysanay waxaan doonaynaa kuwa kale inaan sameyno. hay'adda FDA-da ee Mareykankana waxay naga sugaysaa natiijada ka soo baxday inaan dib ugu celino. waxyaabaha ay eegayaan waxaa ka mid ah badqabka qofkaasi qaliinka lagu sameynayo iyo isku halaynta sida la isugu halayn karo qaliimada noocan oo kale ah. bal ka waran, hadda waa tiknolojiyadda waa ay sii horumaraysaa in qof Afrika joogo dhakhtar Mareykanka joogo uu qaliin ku sameeyo isaga oo halkan ku sugan oo Mareykanka aan ka dhaqaaqayn ayay maraysaa. dhakhtarku waxa uu sheegay sidoo kale caawiyaasha ku sugnaa magaalada Luanda ee wadanka Angola oo qofka bukaanka ah la joogay, xitaa marka ay suuxinayaan si toos ayaan u daawanayay, waxay ila ahayd aniga oo la joogo oo kale ayuu yiri. waxaana uu sheegay in caawiyaal halkaasi ay joogeen, laakiin qaliinka isaga ayaa sameynayay, robotka isaga ayaa maamulayay. markii uu qalay kadibna xitaa isaga ayaa tolayay. marka qaliin lagu guuleystay ayuu ahaa. tiknolojiyadda waa ay sii horumaraysaa. layaab ayaa ila noqotay markii aan arkay, adigana waxaan filayaa inay layaab kula noqon doonto. waa mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiina Cilmi Waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.